بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقعي وسعد محمد آدن maanta waxaan ku soo booqday xarunta guud ee ciidanka dibdemiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aad iigu farxada inay ka nagu soo dhaweeyaan maanta taliyaha guud ee ciidanka dibdemiska Jamhuuriyadda Soomaaliland Sarreeye Guuto Axmed Maxamed Sawaaxili aad baan runtii ugu mahad celinayaa taliyaha iyo ciidankiisa heegankaaba ciidanka dibdemisku runtii sida aan ka wada warqabno dhamaantii bay ka wada daragsanahay waa ciidanka ugu abaabulan ugu shaqada fiican leh intii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay aanu la kulanay aad baan runtii ugu ducaynaynaa inay waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo shaqada ay qabteen ka abaal mariyo waxaan ka rajaynaynaa shaqaduna inta ka sii kordhiyaan ummaduna runtii aad bay ugu wada mahadnaqaysaa runtii maanta waxaan halkan ku falanqaynay buug kamida buugagta turjumay ciidanka dibdemiska Soomaaliland runtii waa ciidamada ugu habaysan ee runtii maktabad u gaarana leh oo aadna wax u akhriya inaan maanta soo booqday runtii aad baan ugu faraxsanahay isay noo soo dhaweeyeenba shaqadii hayaana runtii aad baan u bogaadinayaa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa tiimkii halkan maanta lagu wada casuumay oo maanta akhriyay buugan soo jeedinayay dhamaantood iyagana aad baan ugu wada mahad celinayaa ciidanku runtii shaqo adag bay hayaan dab bay la dagaalamayaan iyadoo aynu boqolkiiba bogaadinayna shaqada ay hayaan haddana waxaan dadweynaha ku dhiirigelinayaa in shaqada ciidanka lagala sii shaqeeyo waliba waxaan aad hoosta uga xariiqayaa in ciidankaasi lagala shaqeeyo saxmadda oo marka la maqlo hoonkooda marka la maqlo waxa weeyaan baabuurtooda la arko in wadada loo baneeyo si ay dabka ay baqtiinayaan ay la dagaalamayaan loogu fududeeyo dhaqsana runtii ay u gaari karayaan laba qodob ma runtii aan wacyigelinta ku darsanaya ciidanku ay wadaan waxa weeyaan inta badan waxa dhacda in aynu aragno caruur iyo ubad yar yar oo guryaha dusha lagaga xidho oo waalidkuna suuqa taga ama wadanihiisa u baxo ubadkaasi in aan guriga lagaga tagin la kaxaysto ama jiiraanka iyo jaarka loo geeyaan runtii aan aad hoosta uga xariiqayaa arinta aad looga dadaalo sidoo kale ciidanku shaqooyinka ay hayaan waa in saxmadda laga ilaaliyo oo ciidanka marka baabuurtooda la arko runtii aad loogu diyaar garoobo waxaan runtii sidoo kale taan hoosta ka xariiqayaa marka dab la arko waliba halis leh qof kasta uu qiyaasi kara dabka halista nooc uu yahay in ciidanka la soo waco lambarkooda gaarka 990 la soo waco si dhaqsan loo soo waco inta aanu dabkaasi halis badan sii gaarsiin meesha uu ka kacay ayaan runtiidan hoosta aad ugu xariiqayaa sidoo kale tan lambarkaasi waa number emergency weeyaan cid kasta iska soo garaaci mayso dadka qaar laga yaabo inay wax yaroon fudud oo aan waxba ahayn ciidanka ugu yeedhaan baa laga yaabaa xashmeel lagu gubay lagu yeedhaan laga yaabaa ciidanka lugooda laga ilaaliyo nafurka ay sameynayaan way laga mahadnaqo laguna kaalmeeyo aad dhamaantiin u mahadsantiin salaamu calaykum